wuxuu ahaa safar saacada qaatay oo aanu gudoodi uga baxnay Garowe in muddo markii aan gudnay ayaa gaarigii naga banjara taayir bedel kadib waxaanu cagta saarnay wadadii gooyaha rastada gaarigu ku dul soconayay qaarkeed waxa yururay xawskugii hore baxay oo xooluhu baal ka daaqeen jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa halka dhulka qaarkiis gudameedkii uusan qaban oo dhirtu ay qalashay inkastoo dhulka badi uu yahay mid dihin oo xoolaha ku dhaqan ay yihiin samoolad maadaama nurarkii kala dameeyay ay ahaayeen barwaaqo aan sidaas la isugu guurin meelaha qaybtood kaamirada istaageeda lama kantarooli karin godadka iyo rafka uu gaarigu dhex jeexayo darteed guura iyo jarmaada kadib waxaanu gaarnay deegaano uu safarkayagu salka ku hayay saaxiibo ila socdayna waxay bilaabeen inay asxaabtoodii ay ka soo guureeyaan la hadlo deegaanka Cambare wuxuu ka mid yahay deegaanada hoostaga degmada Ayl ee gobolka Nugaal magaalada Garowe waxa uu jiraa qiyaastii 130 kiiloomitir wuxuuna ka xigaa dhanka hawdka magaaladan waxa ay ku tiirsan tahay qaar ka mid ah meesiyada xoolaha sida geela iyo ariga meeshaan magaceeda waxa la yiraahdaa Cambare waxa loogu bixiyay dhulka baaxad ahaan waa dhul xooladeedu aad u degaan jeceshahay dooq qarar gaagaaban bay ku leedahay qooc dhibiina bay ku leedahay baaxad leh oo deegaanku qurux badan waa meel arshinta xooluhu aad iyo aad haddii ay doogaad ka helaaneen la korisa sida sanada oo kale reer miyiga waxaan rahnaa meeshaas sanay leedahay dhulka Seemberi xoolaha gashiyaha badan u leh oo wax soo saar kale dadka halkan degan waxay sheegayaan inaysan soo gaarin adeegyadii dawladnimada ee xaq u lahaayeen magaaladani tuulo ka tirsan weeye gobolka Nugaal degmo ahaana waa degmooyinka bay ka mid tahay 22 Ayl hoos yimaada magaalada tani baahida ay qabto way badan tahay dad iska wuxuu qabsaa baa degay oo asaaskoodu wuxuu ahaa dad xoolo dhaqataa ah xooloodii meeshan galiyay wixii kaalma dhinac kale ka yimaada ah way aad iyo aad bay ula ildaran tahay waa magaalo baaxadeeda hadeer aad arkaysaan mujtamaca ku nool deegaan ahaan dal ahaan bakhariirad ahaan sida u dhisan tahay anigu waxaan ahay gudoomiyihii tuulada oo mujtamacaas u doortay waxa magacayga la yiraahdaa Cabdirasaaq Maxamed Muuse bulshada waa matala wadahaan iyo caqli ahaan baan ku matala insha Allah bil Kareem meesha tan aad arkaysaan oo inta deegaankeedu leeyahay oo bulshada inta tira leegta ku leedahay wixii bini aadanku xubinta nolosha ka ahaan jiray waa ka maqanta lambar 1 waxa ka caafimaadka wax MCH oo ay leedahay ma jiraan deegaankani waxa uu ku xiran yahay nurka guga ama dayrta oo baraagaha biyo galiya haddii nurku seejiyana waxa looga guurayaa asqo
inkastoo duruufaha guud ay kala sameeyeen deegaanada kale haddana dadka deegaanka Cambare waxa u sii dheer adeeg la'aan caafimaad oo xataa ma lahan deegaanku MCH wax MCH oo ay leedahay ma jiraan haddii qof ama umulo islaan ama qof yaani emergency ku yimaado iyadoo dadka awoodiisa maanta la malayn karo overpopulation ku furan iyo shaqo la'aanta iyo caafimaad xumada waxa lagu la rooraa iyagoo aan wax dhaqaale lahayn meesha noogu sokaysa oo wax qabad leh gobolka nolol kama sokeeyo degmada Ayle gobolka Nugaal oo deegaankan laga xukumo ayaa dadka deegaanku waxay sheegeen inaysan waxba u tarin ee kaliya ay xukunto degmada Ayle oo ay tuuladaan hoos timaado inay arinta wax kala qabtaan caafimaad darrada oo xagga MCH la'aanta iyo isbitaal la'aanta intaba inay arinta iyaguna ay maaragtay wixii ay kala qaban karaan la qabtaan maadaama ay tuuladaan hoos tagto degmada Ayle qalifkii wararka arteen garow